Assalaamu calaykum. Waxa uu qof waliba og yahay in maanta adduunku uu gala xaalad adag, xaaladaasna saameysay dhammaan nolosha dabiiciga ah ee aadamiga. Tusaale, waxaynu ogsoonahay maanta ardaygii, macallinkii, madaxdii iyo baayac mushtarkiiba dhammaantood ay wada guryaha dhex fadhiyaan, waqtigooduna ay ku wada gubayaan waxyaalo kala duwan sida daawashada TV-ga, ciyaaridda game iyo waxyaalo kaleba. Waxa kale oo aan ku sheegay in uu xanuunkani bari ka maalin uu dabarko i doono. Marka uu dabarko inaanu adduunka sidaad ku taqaaniin aanu ahaan doonin. sidoo kale isbedelay dhammaanba waxyaabaha asaasiga ah ee bulshada sida dhaqaalihii, siyaasadii, wax soo saarkii, waxbarashadiiba. maadaama aynu arday u badanahayna, muuqaalka maanta waxaan idin kula wadaagayaa 4 xirfadood ama skills loo baahan yahay inuu ardaygu waqtigiisa firaaqada ee uu guriga jooga ka faa'iideysto si uu bari ka maalin u soo baxo isagoo aqoon ahaan iyo garaad ahaanba u hubeysan oo la jaan qaadi kara adduunka cusub ee nagu soo wajahan. soo dhawaada oo kuunu macana. inteena gudagelin barnaamijkan waxa ay afeefa in 4 xirfadood bilowgooda kugu adkaan doono, balse haddii aad leedahay hami iyo damac weyn oo ku gubaya oo kale wax walba baran kartaa, waxaan hubaa inuu ku fududaan doonto. waxa kale oo aan ku bishaareynay in 4 xirfadood hadhow ay noqon doonaan kuwa suuqa caalamka ugu baahida badan leh insha Allah. QuickBooks waa software loo isticmaalo xisaabaadka, waxa isticmaala shirkadaha iyo warshadaha, sidoo kale waxa uu si gaar ah u anfacayaa ganacsiyada yaryar sida iskuulada, jaamacadaha, isbitaalada iyo kuwa kale oo fara badan. QuickBooks wuxuu ka caawinayaa si fudud ula socotid dhaqdhaqaaqa macaamiishaada iyo inaad si fudud u heshid dhammaan warbixinaha la xiriira ganacsigaaga si toddobaadle iyo si wiigla ahba. sidoo kale waxaad si fudud ku ogaan kartaa in ganacsigaagu faa'iido ama uu khasaaray. haddii aad baratay xirfadan, waxaad ku shaqayn kartaa hab online ama offline ah labadaba. xirfadda labaad waa digital marketing. macnaheedu guud waa xayeysiin, balse habka loo xayeysiinayo ma aha habkii hore ee u naqaanay traditional marketing. in ka badan 3.4 bilyan oo qof ayaa ku kulma baraha bulshada caalamka. qofka digital marketing waxa uu wadaa isagoo adeegsanaya baraha bulshada in uu dadka ka iibiyo alaabtiisa. waqtiganna badi shirkadaha caalamka waxaad moodaa inay ku baraarugeen muhiimadda ay leedahay digital marketing, maadaama dadka wax ka iibsan lahaa ay guryaha ku jiraan una baahan in iyagoo xalkooda jooga helaan adeegyada ay u baahan yihiin. xirfadana waa ta kaliya ee aad ku shaqayn karto hab online ah. web development-igu macnaheedu wuxuu noqonayaa sameynta, qaabeynta, horumarinta website-yada. sidoo kale wuxuu noqon karaa sameynta apps-ka ay mobilada ku wada sidano. dadka web developers-ka ah waa dadka sida doona u rogroga tiknoolajiyada casrigan. markaad eegtid meelaha ay ku kulmaan dadka xirfadleyda ah sida website-ka freelance, waxa kaliya in loogu baahi badan yahay waa dadka bartay website development-iga. waana ta ugu muhiimsan baan odhan lahaa 4 xirfadood. xirfadeena afraad ee u dambaysa waa muuqaal sameynta. muuqaal sameyntuna waa isku keenida muuqaalo kala duwan, codad iyo sawiro si loo sameeyo muuqaal qurux badan tayana leh. waxaynu ognahay in maanta adduunku isku bedela aragtida ah itus oo itaabsi. waxaana aad u yar haddaynu Soomaalinahay inaad heshid macaahid u gaara oo lagu barto muuqaal sameynta. dhanka kale waa xirfad malaayiin dollar ku abuuri karta haddii aad si fiican u baratid. sidoo kale waa xirfad waqti yar ka qaadanaysa. insha Allah muuqaalka xiga waxaynu ku eegi doonaa meelaha ugu wanaagsan ee aad ka baran kartid xirfadaha aynu soo sheegnay. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.